soomaalida hore barwaaqo ayay ku jiri jireen maxaa yeelay muslimnimadooda way ka run sheegeen aamin bay ahaayeen isdabamariska hadda aan ku jirno khiyaanada hadda aan ku jirno ma aysan samayn jirin taas ayaa rabanaa inaan ku soo ceshano oon dabeecaddaasi oo laga run sheego muslimnimada taas ilaahay subxaana taala nagu soo celiyo iimaanka lahna geliyo qofkii mas-uula waxbuu dhacayaa ummaddii ayuu khiyaanayaa subxaana allah muslimnimadu waa ilaahay isku dhiibo oo la yidhaahdo ilaahay ow kama baxsan karo adaan isku dhiibay wax khiyaani maayo dembi gali maayo adaa iga dambeeyo isugayo maaragtay hadhowda ila xisaabtamayo taas waa muslimnimada lagu sheegayo ilaahayna hanuuniyo maadaama aan Soomaali nahay muslimnimadu waa in ilaahay isku dhiibo oo ilaahay la baryo oo adduunka laga soo jeesto oo la ogaado ilaahay inaan laga baxsan karin adduunka inuu wax tareen la ogaado wixii aqaanto in boog ku qoran yahay oo qoorta lagu gelinayo aad ogaato dhul yar adduunka kamid ah hadii aad aqaanto in ilaahay subxaana taala ka warhayo oo laga jaasinayo aad ogaatid waa muslimnimada markaas ilaahay baa isku dhiibaysaa isku dhiibidaas way muslimnimada adduunkan dalaalkiisa salaxas dheer malaayiin dollar adigoo mas'uul ah malaayiin dollar in adduunka aad dhigato oo ummad ay leedahay aad ka qiyaanto iyo inaad adduunkaas dhinacna iska marso tira ilaahay laga ma fakare aad isku ka dhiibo waa ku sujuuday wixii lagu dhiibo aamin aad tahay oo aad sidii la rabo aad u gudanaysid mas'uulnimada lagu dhiibtay hadii awaalid tahay hadaad madax tahay hadaad maartay meel ala meesha mas'uul ka tahay waa lagu weydiinay sidee tahay inaad u gudatid oo ilaahay isku dhiibtid dumarkan sidoo kale ilaahay inay baryaan isu dhiibaan oo ninkooda risqi xalaal ilaahu noogu soo dhiib odagaan baxayo soo noqonayo dad moo soo qiyaani ma taqaan marka qiyaanadaas laga soo jeesto ilaahay isu dhiibo muslimnimadu waa taas aan ka baxna midaan hadda aan